السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسود هذا تاريخ حمزة محمد حسين وكم قاعد حمزة بلوكي. حمزة محمد حسين وكم قاعد حمزة بلوكي dadka qaarna u yaqaanaan Xamse Bogba waxa uu ku dhashay sanadka marka uu ahaa 1996 magaalada Ceerigaabo ee gobolka Sanaag waxa uu ku soo barbaaray isla Ceerigaabo isagoo oo dugsiga hoose iyo dugsiga sare ba ku soo dhameeyay isla Ceerigaabo waxa uu ka mid ahaa dhalinyarada sportska aadka u taageera waxa uu ahaa mid ka mid ah ciyaartooyda magaalada Ceerigaabo isagoo uu soo kala ciyaaray dhowr kooxood oo caan ah sida way aragta iyo Chelsea oo uu ka mid ahaa asaasiyaashii kooxda kabtanadii kooxda soo marayna uu ka mid ahaa isla markaana wuxuu isku wadi kari waayay waxbarashada iyo sportska wuxuuna watay waxbarashadiisa arrimo family darteed lama sano kadib wuxuu dib ugu soo laabtay arrimaha sportska isagoo u soo ciyaaray kooxo badan oo ay ka mid yihiin Onkodiya Aqsa Luka waxa uu caan ka ahaa magaalada Ceerigaabo wuxuu lahaa asxaab fara badan wuxuu sii lahaa laba saaxiib oo ay aad isugu dhawaayeen muddooyinkii u dambeeyay waxayna kala yihiin Yaasiin Cabdiraxmaan Qowle iyo Ibraahim Xusni oo ay ahaayeen asxaab aad isugu dhow wayna wada noolaayeen labada saaxiib Ibraahim Xusni waxa ay isbarteen 2006 ilaa maanta waxa ay yihiin labada qof ee dadka isugu dhow inkastoo waqtigu kala taxayay haddana mar walba isku warhaya Luka waxa uu 6 bishii shanaad 2017 tagay gobolka Sool ee magaalada Laascaanood uuna aad u jeclaa isagoo ku noolaa muddo 5 bilood ah kuna jiray arrimo sporti Luka waxa uu Laascaanood ka helay asxaab aad u tiro badan halkana lagu soo koobi karin waxa uu marka uu Laascaanood joogay ciyaar jiray waxay ahayd kooxdii Leydfield iyadoo oo kooxo badan rabeen haddana go'aan adkii ayuu kooxdiisa kula joogay haddaba su'aasha taagan waxa ay tahay Luka uu taageera kubadda cagta waxa uu taageeraa labada kooxood oo kala ah kooxaha Arsenal iyo kooxda Real Madrid khaasatan waxa uu aad u taageeraa laacibka kooxda Real Madrid hadeerna uu ciyaaro kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo Luka waxa uu aad ugu noolaa magaalooyinka Ceerigaabo Hargeysa iyo Laascaanood laakiin iminka xagee ku sugan yahay waxa uu ku sugan yahay magaalada Kismaayo ee xarunta Jubbaland isagoo oo halka ka wada jaamacadiisa iyo arrimo sporti Luka waa qof aad u nasiib badan xagga dabiicadda qof kasta oo maanta Luka yaqaan wuu dareemi karayaa wuxuu khaasatan mar walba dhahaa waxaan xiisay gobolkii Sanaag iyo family-gii gaar ahaan hooyadii iyo walaalkiis iyo saaxiibadiisii nolosha qofka qura ee uu kalsoonida ku qabaa waa saaxiibkiisii ay aadka isugu dhawaayeen Ibraahim Xusni waa taariikhda Xamse Maxamed Xuseen